madaxweyne ku-xigeenka maamulka Buntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo weelinaya Channal Khaliif Ciise Mudan ayaa soo gaaray magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. Jaaliyadda reer Buntland ee dalka Jarmalka oo ay weelinayaan qaar ka mid ah ururada Soomaalida ee dalka Jarmalka ayaa soo dhaweynta labada mas'uul kadib waxa ay kulan kula yeesheen hoteelka ay ka degeen magaalada Frankfurt. Gudoomiyaha jaaliyadda Buntland ee dalka Jarmalka iyo gudoomiyaha ururka Somali Community Service oo ugu horreyn goobta ka hadlay waxay ku soo dhaweeyeen dalka Jarmalka waxaana wafdiga ku wargeliyeen in munaasabad tan ka ballaaran loogu qaban doono magaalada Darmstadt si ay goobtaasi ugu kala warqaataan jaaliyadda Buntland iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee kaleba. xaqiiqdii waa markii ugu horeysay oo madaxda Buntland ay halkan yimaadaan gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenku si gaar ah iyo ahmiyad gaar ah bay noo leedahay. aad bay noo farxad gelinaysaa. waxaan rajaynaynaa booqashadaadu inay noqontii ugu dambeysay safarro kale aad noogu timaadid waddankan Germany. ahmiyad badan buu maanta Soomaalida u leeyahay. waxaan filayaa wuxuu ka mid noqday wadamada ugu dadka badan Soomaalida ugu tirada badan ay ku nool yihiin xilligan qaaradda Yurub. anigoo ku hadlaya afka ururka Somali Community Service oo ka dhisan magaalada Darmstadt oo dhalinyarada waxaan rajaynaynaa intaan si fiican ugu soo dhaweeyno madaxweynaha iyo wafdiga la socdo. ilaahay hadduu yiraahdana sabtidana waxaan oo qorsheysan inta xaflad weyn ugu dhigno magaalada Darmstadt. waxaan rajaynayaa reer Buntland intay ka soo qayb gali doonaan iyo Soomaalida guud intay ka soo qayb gali. waxaan maantay anagoo ah jaaliyadda Buntland aan soo dhaweynaynaa madaxweynaheeni iyo generaalka soo dhawaada. waxaan rajaynayaa insha Allah marar badan inaad soo booqataan ku soo dhawaada Germany anagoo ku hadlayna magacii dumarka Soomaaliyeed oo idil. waxaan ku faraxsanahay inaan maanta halkan kugu soo dhaweyno. waxaan sidoo kale jecelnahay inaanu isla magaalada Darmstadt kugu soo dhaweyno adiga iyo wasiirkii hore amniga Buntland Channal Khaliif Ciise Mudan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddaanu nahay dhalinyarada ku nool dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Frankfurt waxaan ku soo dhaweynaa madaxweyne ku-xigeenka Buntland Axmed Cilmi Karaash iyo Jarmalka. aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa. waxaan idin leenahay martidan sharaf hool ka wacan iyo marti badan iyo meel wacan oo qurux badan baan idin soo dhaweynaynaa. Channal Khaliif Ciise Mudan oo hore u ahaa wasiirka amniga Buntland oo goobta ka hadlay ayaa isna dhankiisa u mahad celiyay bulshadii soo dhaweysay waxaan uga warbixiyay xaaladda guud ee deegaanada Buntland. waxaan markii horeysay idinka mahad celinaynaa soo dhaweyntan qiimaha leh iyo idinkoo gobolka kala fog iyo dalal Jarmalka haynba ka yimi. taasuna waxay muujinaysaa tixgelinta iyo qadarinta aad u haysaan madaxweynaha iyo dowladdiinaba. wadankii baanu ka nimi inkastoo aan dhowr beri soo moogeen. wadankii waa lagu fiicnaa wax dhibi kama jirin. waa roob baa ka da'ay amniga iyo howluna waa fiican yihiin. gabagabadii waxaa kulanka soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Buntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo dhankiisa isna uga mahad celiyay bulshadii soo dhaweyntiisa ka qayb qaadatay. qabay aad iyo aad baa maxay tahay loogu fiicnaa. sida aad la socotaan shirar waaweyn oo ka dhacay oo adduunka Buntland adduunku bartay adduunka oo dhan baa looga yimi oo maalgashi shirarkii maalgashiga waad la socotaan. kaasi wuxuu dhalay in laga casuumo Turkiga oo aanu ka soo qayb galay annaga iyo ganacsato iyo dawladduba. waxaanu oo aad iyo aad si fiican noogu soo dhamaaday. sadcaalkaygu kaasuu markii hore ahaa waxaanu dabeedna inaanu hore idinku soo marro. Sakariya Jeylani, Saab TV, wararka dalka Jarmalka.